السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودي شيء قالي أحمد وبأدلنا دافيد كجوكتي وان السلام وحان الله هاي وحول بيديته ونكسن سحبتي قيمة بدل له. الحمد لله أنا واني في عنها سونا قد ونكسن إلهي سبحانه وتعالى يا مهد اسكله وبشر بدل نبات وجسود دمي ولا ليه قالي دمانتين إلهي سبحانه وتعالى سيد يجعشين ويجعشين إلهي سبحانه وتعالى هنجعل هذا ولا ليه قارجة ما أنت وحنا وضعه حفر قضب وأتقول كجاري كرتو قضب كواد إنا نقطف وصاحبك وناجي يوصل أنت مرة والبعد وناجي صاحب وتهاي وناجي أتكود دالي ست واحد جاري كرتا تقول وين هدي حتى لو حماية وناج بدل واي وناج وحول بدن أيوه حاجاتية قضب قلوات هذا أنقذ الجلو mar walba noqo ruux ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku xiran kuna kalsoon naftiisa naftaada mar walba aad ku kalsoon tahay waxaad ogaataa inaad noqonayso qof guul gaara markaad guul gaarto dad badan oo ku niyad jabiyo waad arkaysaa dad badan oo ku dhawaxa ma sameyn kartid wax mi kaamera meesatid wax ma haysatid saana ahayd kana ahayd waxaas oo dhan waxaa loo baahan dad dhig wada dhigin mar walba aad rabtid inaad guul gaartid waxaa loo baahan inaad noqoto qof adag guusha aad lagu sheegay sideeda banaan gacantaada ayay ku jirtaa haddii aad adiga iska seexatid iyadana way ka seexanaysaa haddii aad u istaagtid way ku istaagaysaa waxa xaqiiq ah oo lama huraan ah markii adiga aad guul gaartid badan oo ku sacbato mood arkaysaa laakiin intaad guusha gaarin waxa ka horeeya caqabado badan ayaa ka horeeya caqabadahaas iyo jarjarooyin badan oo loo baahay inaad ka gudubtid dadka arkaysid maantay oo cadaan iyo Soomaali wax walba leh maantay oo guul gaaray dib badan ay soo mareen guush hal maal iska ma eegan qodob kasta cadada ugu galan noqo qof mar walba wuxuu helo wax ka baxsho mar walba aad wax bixisid adigina Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ku soo galinayaa qodobka afraad hadii aad ugu galan noqo qof walba oo dhibaataysan oo walaalkiisa naftiisa kali aan ka fikirin na wuxuu asaga helo qofka asaga kaliya mar walba fiiriyo mar walba aad fiiriso qofka adiga ka liito waxaad helaysaa adigana wax badan ay ku soo galaayo noqo qof lagu daydo oo wanaag u saaxiibka ah iyo mar walba naxariista bini'aadanimada ku dadaala adduunyada maanta la joogo waxa heer lagu gaari karaa inaad tahay qof daacad ah wanaag u saaxiibka ah mar walba aad guuleysatidna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wax aad Ilaahay ku siiyana ku shukri alxamdulillah deh walaalihii qaaliga dhamaantiin aad ayaan jeclahay heerka diyaarsiisayna waan niga mahad celinahay dhamaantiin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka suko idinka aad niga mahad celinaya mar walbana waxaan jeclaa inaan dhiirigeliyo noqdo nafteena aan dhiirigeliyo aan is dhiirigelino aan qalbiga isku dhisno aan isgarab istaagno walaalihayga Soomaaliyeed waxaan kale in halkaan fariin ugu diraa qof walba oo maanta dhalinyaro ah oo aan janakii wiil ama gabadh igu xiran ha fadhiisanin hadii aad jiftid maartay fadhiiso hadii aad taagan tahay aad fadhiisid istaag ayaan ku leeyahay mar walbana guushaada ka xaajisin walaalihii qaaliga ah waxaan jeclahay mar walba in dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogto iyo dadka dhan muslimiinta ah inay guuleystaan dad badan ayaa waxa jiro siiba gabdhaha ayaan la hadlayaa oo maartay wax yar haday ku dhacaan niyad jabina mar walba waxa loo baahan yahay guushaada gacantaada ay ku jirtaa inaad u istaagtid mar walbana waxa loo baahan yahay inaad noqoto qof adag oo adduunyada waxa yacni maanta guul ka gaari karo qofka naftiisa ka adkaada wax walbana isku daya inaad guul darasta ceeb ma ahan waayo guusha lagu sheegay guul darada ay ka bilaabataa mar walba aan ahaano dad naftooda dhiirigeliyo iskuna kalsoon hadii mar aad rabtid inaad kalsooni naftaada galisidna mar walba waxaad ahaataa qof Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku kalsoon walaalihii qaaliga ah dhamaantiin aadan jeclahay guys waxaan rajeynayaa muuqaalkii inaad ka heli doontiin waxaan rajeynayaa farxad iyo caafimaad guys dhamaantiina aadan igu xiisay idinkan waxaan rajeynayaa sidoo kale inaad igu xiisteen dhamaantiina daawadayaasheeda qaaliga ay igu xiran waxaan rajeynayaa in la joogto hornool jooga naga tagina inta noogu cusubna waxaan la soo dhawaada welcome qalbi furo gacmo furniid saafi ah ku soo dhawaada asxaabtayda qiimaha badan leh aadan jeclahay guys dhamaantiin waxaan leeyahay one love السلام عليكم ورحمة الله تعالى